waxaa maalmahanayta waa la suwaaya marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij aad iyo aad u wanaagsan rabaa inaan ka hadlo TikTok-ga maalmahan waxaa ku soo batay nin oo ajnabi ah oo soo qaatay micnaha uu soo xiray asaga dhan so markasta wuxuu ka hadlaa diinta islaamka inuu mar walba ka hadlo kale kama hadle laakiin wuxuu rabaa inuu ku xadgudbo waa ninkan sawirkiisa hadda u jeedin kor saaran waaye so kitaabkii soo qaaday wuxuu leeyahay waxaan rabaa kitaabka inaan bedelo aan ka dhigo af Ingiriis maalin walba live ba soo galaa ujeedka marka waxay tahay videogan u soo duubay dadka ama dhalinyarada ama maamooyinka ama whatever ama aabayaasha hadday arkaan oo kale qofkaan oo kale in ay blog iska saaraan waa qof mar walba ugu talagala waaye inuu sameeyo xadgudub uu ku sameeyo diinteena islaamka diinteena islaamka quraankeena kitaabka oo Ilaahay noo soo dejiyay waa kalmo waxa ku qoran kalmada Ilaahay ku qoran wax la bedeli kara ma aha fataatan wax la bedeli kara ma aha waa ereyadii Allah subhanahu wa ta'ala wax la bedeli kara ma aha marka ujeedada videogan yarkaan u soo duubay ayaa taasa muhiimad ah qof kasto hadduu arko blogga iska saaro hana dareemo in barnaamijka uu wado in dadka muslimiinta aysan jecleen habeen hore qof buluuga soo qabtay wiil carab ah oo af Ingiriiska si fiican u yaqaan dood baa dhex martay wiilkiisa marka uu tuuray waxaa la yiri marka hore wajigaaga fur caadi u soo fadhiisaa la yiri kadib sorry waxaa la yiri wajigaaga fur kaamirada soo fadhiiso anigana soo fadhiisanayaa bal aan ka bada doonno uu diiday inuu wajiga furo qofkii uu iska tuuray sababtoo laafka asaas kale saas darteeda qof kasta waxaan kula talinayaa in uu isla markaa tuuro bal si fiican ila daawada fiirsada videogaanito. You find yourself before me today. You were chosen long ago, and I have been waiting for you. It is now time for you to start your journey to becoming a scholar of light. So marka inaan hadda sii daawana muhiim ahan laakiin bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada social media aadka u isticmaasho ayaan macna u sheegayaa waxaa jiraan dad badan aan English aqoonina jiro aan fahmi karin wax laga wado waxaa laga yaabaa kitaabkaas san u hayo inay iska arkay ninkan kitaab u haya kitaab u aqoon u dhahay ma ahan jiljigu soo qaatay inta kale waa book cadaan waaye waxa waraaq cadaan waa gadaal marka wax buu maanta ku qorqoraya marka so marka waxaan leenahay insha Allah taala dhalinyarada dhamaan waxaan leenahay social media isticmaasho haddaad aragtiin ninkaas oo kale meel iska saara aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta dhamaan insha Allah taala video badan aan soo wadaa maalmahan hooyar waa ka caajisay insha Allah taala hadduu Ilaahay yiraahdo asxaabay waa ujeedin kor u socda insha Allah taala tiinkaygan horta aan ka bilaawno aan gaarsiino subscribe noo saar insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaantiin insha Allah taala hadda kadibna waxaan bilaawraa insha Allah taala kommentiyada ayaan soo qaaday video kommentiyada hoos la soo dhigaa rabaa inaan soo qaado had kadib aan soo dhigaa rabaa insha Allah taala aan micnaha ka bixiyo kale aan ka hadlo kale kommentiyada faniga kale insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks aad u mahadsan.